السلام عليكم ورحمة الله تعالى وأنا عبد الرحمن أحمد السرا halkaad nagala socotaan waa Ilsara Academy oo inta badan aad ku barataan qaybaha kala duwan ee multimedia maanta waxaynu baran doonaa cabirka cusub ee inta badan aad aragtaan Facebook-ga Twitter-ka iyo sidoo kale Instagram-ka loo soo galiyo muuqaalada oo ka duwan cabirka YouTube-ka ee hore u taqaaneen cabirkan runtii waxa uu kaga duwan yahay amaba inta badan loo adeegsada marka social media la joogo gaar ahaan qaybaha aynu soo sheegnay waxa uu sameeyaa muuqaalkaaga marka in uu soo jiito dadka maadaama uu yahay mid ku haboon goobaha aad gelinaysid marka si aynu arintaas ayaa waxa soo weydiiyay dad badan oo ku xidhan social media hayga kala duwan waan ana mudooyinka u dambeeyay aan isticmaalayay cabirkan cusub marka ila soo xiriireen waxa ay weydiiyeen qaabkan aan u sameeyo ama qaabkan loo sameyn karo waxa aan ka jeclaystay intaan mid walba gaarkiisa ugu sharaxi lahaa in iyaga iyo kuwa kale badan ay ka faa'iideystaan oo marka si fudud oo dhib yar ay ku arkaan ugu horeyn haddii aynu ku horeyno muuqaalkan waa 4K inagu sida aynu niqinay drag and drop and soo sameeyna halkan aynu ku soo jeedaynaa cabirkiisa marka waa 4K ahaan laakiin waxaan rabnaa inaynu ka sameeyno muuqaalka aynu sheegayno hadda programkan isticmaalaya waa Adobe Premiere Pro 2020 biloodiisii u dambeeyay sida daraadeed marka ugu horeyn waxaynu tegaynaa halkan ay ku qoran tahay sequence ayaynu click siinaynaa dabadeedna halkan u hooseysa ee auto reframe sequence ayaynu markaasi dul tegaynaa oo click siinaynaa marka waxay noo soo baxaya marka page-kan cusub inta aanan gelin halkan marka aad taagan tahay mararka qaar sequence-gaas kuma soo gelayo oo waxay noqonaysaa inaad markaasi samaysato cabirkan marka kuwa dambe hadda Adobe Premiere Pro oo kale 2020 waa uu iska sameeyay laakiin kuwii ka horeeyay ma garanayo 19kii inuu lahaa laakiin 18kii 17kii iyo kuwii ka horeeyay ma lahayn oo iyaga si gaar ah loo sameystaa marka kan way fududahay halkan marka uu inoo soo baxo square halkan ay ku qoran tahay 1 ayaa marka waxay u dhigan tahay 1 iyo 1 oo labada dhinacyada oo dhana taasi waxa ay ka dhigan tahay inuu yahay 1080 oo HD ah halkii aad ka taqaaneen 1080 1920 oo cabirka YouTube-ka ahaa laakiin hadda wala isku soo celiyay labadii dhinacba wax laga dhigay 1080 marka waxay u soo gaabiyeen 11 oo halkan aad hortiina ku aragtaan cabirka kala jira laakiin ma taabanayno marka waynu sameyn karnaa mararka qaar waad sameyn kartaa waxaad tegaysaa halkan baad ku dhufanaysaa custom baad ku qoray halkan 1619 waa kii YouTube-ka kale marka 0 baynu inoo ka dhiganaa ama 11 baad ka dhigay hadba waxa doonto dabadeedna create bin oranayna marka create waa in halkan ay marka ku don't next clip waa in halkaas TikTok ku saarnaataa marka waxay kugu qaadan kartaa in ay cabaar u wareego iyo markiiba oo soo saaro sameeyo taasi waxa ay ku xiran tahay computer-kaaga graafka ku xiran marka inaga hadda graaf ay noogu xiran sida daraadeed markiiba uu inoo sameeynaya waxaad aragtaa in markiiba uu sameeyay oo waliba la daawan karo muuqaalkii uu kan yahay waxa jira frame yar oo ku wareegsan muuqaalkan oo qurxiye isna kaas oo kale si aynu sameeyno isna waxaynu tegaynaa file dadna new bayn tegaynaa legal title ayaynu tegaynaa click ayaynu siinaynaa waxba cabirka ka bedeli mayno halkan waxaad aragtaa in cabir 4K oo kale uu qoran yahay waxba ka bedeli mayno waxa la waxaynu ka bedeli ma jirto dad magac ula baxayso bad halka magac ku qori waxba ku qori mayno imika click ayaynu siinaynaa marka rectangle kan ayaynu tegaynaa rectangle tools kan markaynu tagno oo click siino angle-ka ayaynu ka soo bilaabaynaa waynu soo jiidaynaa halkan ayaynu ku dhufanayna waxa jira qaabab kale oo ka fudud ayaa dhici karta inay jiraan laakiin anigu qaabkan ayaan isticmaalaa waxa jira qaab kale oo isna Photoshop-ka dadku ay ka soo isticmaalaan oo cabirkan frame-kan aynu sameeyno ka soo leekaysiiyaan laakiin anigu halkan isla halkan kama baxo oo waxaba bartan ayaan ku wada isticmaalaa maadaama inta badan aad degdeg u sameynayso muuqaalada
marka sidaa markaynu samayno strokes ayaynu tegaynaa halkan ay ku qoran tahay ayaynu add odhanaynaa marka add markaynu nahno waa kan hareerta kaga soo daray dabadeedna halkan ayaynu cabirkan jeedaynaa ilaa iyo intaynu garanno inuu muuqan karo ama quruxdiisu soo bixi karto marka 35 baan ka dhigi karaa 35 wuu muuqdaa waynu bedeli karnaa madowgaas oo waxaynu ka dhigi karnaa maadaama green hadda aynu isticmaalayno blue baynu ka dhigi karnaa bluegii si fiican ayuu soo baxay kan ayaynu click siinaynaa dabadeedna isagaynu khadka ka saaraynaa opacity-gaynu ever ka dhigaynaa marka waxaad aragtaan in hadda uu framekii kaliya noo soo haray deedna waa ka laabanayna waxaa dhici karta in asxaab badan muddo isticmaalaysa ay qaabab kale oo ka fudud isticmaalaan laakiin inta kale aan isticmaalin qaabka fudud ayay u isticmaali karaan waxaad aragtaa in hadda framekii si fiican u soo galay muuqaalkii qurux badan yahay inta badan waxaa loo adeegsan karaa muuqaalkan social media dad badan oo looma adeegsan karo oo dadka qayb buu ka goynaya marka muuqaalada kooban iyo sidoo kale muuqaalada ana xayeysiisyada waxaasaan loo adeegsan karaa marka waxaad aragtaan hadda in qaabkan uu soo baxay oo aad u qurux badan yahay hadhow marka social media la geliyo waxa uu leekaanaya cabirka mobilkaaga si fiican ayaad daawan kartaa marka waana jeclaysan inaad daawato casharkeeni ayaa maanta intaas ku koobnaa fadlan haddii aad ku cusub tahay Ilsar Academy subscribe saar gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada marka ugu horeysa soo galino la wadaag asxaabta wixii macluumaad ama comment aad qabto xagga hoose nagula wadaag ama bana la soo xiriir waa mahadsantiin